waxaanu hambalyeynaa wasiirka arrimaha gudaha ee arkay wacyigu ismaanta siduu joogo hambalyadiisa uu soo jeediyay ee dalka uu fiirsaday ee abaaru ku socdaan ee haddii alla xugmiyo oo ku socdaan waan taageeraynaa waan taageersanay aad baanu taageersanay waxaanu leenahay waxa dalka dib loogu yardhigay ee nu wada arkayno ee dunuuftu caynka tahay waxaanu leenahay nin waliba wixii danu leeyahay dib ha u dhigto ayaanu leenahay maanta gurmad baynu ku jeednaa laba ma yeelanayno laba qalbi ma yeelanayno ilaahayna waynu baryaynaa roob doontana waa akhriyaynaa taladuna markaa uu inoo soo jeediyey wasiirkeena arrimaha gudaha iyo waxa ka hooseeya iyo kuwa la midka iyo madaxweynaha ay soo jeedinay wada aragtidaasaanu hambalyeynaa baan leenahay ka hadlaynaa degmada Beligubadle gaar ahaan gobolka Hawd marka ay sidaa tahay maanta waxaanu maqalay in mooshin laga dhaqaajiyay dadkan xaaladaysan ee maanta u baahan gurmad degdeg oo baahan oo maanta wax laga dhaqaajiyo dadkan uma baahna waxaanu aad ugu boorinaynaa uguna hambalyeynaa wasiirka arrimaha gudaha amarka uu ka bixiyay inaan wax maayira ah oo waqtigan xasaasiga ah laga dhaqaajin karin gobolada iyo degmooyinkaba aad baan ugu soo dhaweynaynaa wasiirka iyo bari saabka uu fariinta soo farayba aad buu ugu mahadsan yahay waayo maanta inagoo ku jirna waqti xaalada dee jaanisyo badan bay haysteen haddii ay wax ka bedelayaan waa loo baahan yahay rag wax dee haddii ay wax qabad saluugaan wax ka bedela oo cid wax qabanaysa samaysa laakiin xilligeeda ayay leedahay والسلام عليكم الله أحمد محمد محمود سيرايو يجود دابارها أيها الكسران وجسوا جود بنيا أنا جو كهرنيا دقمة بالقبلة قبل كاود كارهان وحن أول نقطي قلنا نقولها ديجان كيف بالقبلة إما أنت ما يركض دقائق شيء والمال بدنا فرصة ويتاجرين باكتة ما أنت كداية وحن يذكر عصينا نقولها ديجان كيف بالقبلة ما أنت مالي وحلا بدل ما هنيو ومودن كوا باريسيي وحلو باهيهي وحمانتا dadka wuxu baadi doona oo abaarta ka hadla ayaa loo baahayay waa jiilal waa xilxun waxba maanta maayirka bilgooda lama bedelayo waxba bedelina leenahay maayirku shaqadiisa uu haysanaya wasiirka arrimaha gudaha arinta uu ka soo jeediyay waa ku taageersanahay